kana waa tusaale kale oo ah marka xisaabtu exponentiga basekeedu uu kala duwan yahay. Okay, waxaa loo baahan yahay ma ahan markaan baseku isku mid ma ahan oo ma ahan sidii hore oo looga shaqeynayay markuu baseku isku mid yahay way ka duwan tahay. xisaabta isku dhufashada markay basekeedu isku mid yahay si gooni ayaa looga shaqeeyaa, marka basekeedu kala duwan yahayna sida tan oo kale si gooni ayaa looga shaqeeyaa. tan waxaa loo baahan yahay number kasta oo exponent power wata ama exponent wata inaad si gooni uga shaqeysid. kan wuxuu la mid yahay 3 lagu dhuftay 3 oo ah 9. sidaa darteed 9 ayaan halkan ku qoranaynaa lagu dhuftay kan goonidiisa ayaan isagana uga shaqeynaa oo wuxuu la mid yahay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 oo la mid ah 16. sidaa darteed 16 ayaan halkan ku qoranaynaa. labada number ayaan isku dhufanaynaa waxa ay la mid yihiin in la helo weeye. 9 marka lagu dhufto 16 9 marka lagu dhufto 16 waxay la mid tahay 144. kaas ansarkiisa saas weeye. mid kasta oo number kasta oo power wata goonidiisa ayaad uga shaqeynaysaa. halkan ayaad dhiganaysaa ku dhufashada ka tegi maysid, kana sidoo kale kadibna wixii kuu soo baxay kan iyo kan wixii kuu soo baxay ayaad isku dhufanaysaa oo resultigan ah ayaad isku dhufaysaa kadibna ansarkaas ayaa kuu soo baxaya. tusaale kale oo kan isla marka isagii ah aan sameyno. sidaan ii sheegay baseku waa kala duwan yahay laakiin waa isku dhufasho, sidaa darteed waxaan u baahannahay mid kasta inaan goonidiisa usoo helno. kan muxuu la mid yahay? wuxuu la mid yahay waa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 oo la mid ah 8. sidaa darteed 8 waa inaan halkan ku qoranaa lagu dhuftay kanna waa inaan soo helnaa. kan wuxuu la mid yahay 4 lagu dhuftay 4 oo la mid ah 16. sidaa darteed kanna waa 16. xisaabtayni weli ma isa dhammaan. intaan ayaan fududeynay, intaan ayaa soo baxday. intaan inaan kasii shaqeyno ayaan u baahannahay. 8 marka lagu dhufto 16 waa 128. sidaa darteed jawaabtaynu waa 128. xasuusnow marka basekaagu uu kala duwan yahay sida looga shaqeynayo iyo marka basekaagu uu isku mid yahay sida looga shaqeynayo.